والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دمان صحافة مدح بنان يهدي شوكتي دولة دبا وأيد الصلاة مركب وهو رئيسة وأنا يدي سود وينيا مركب لبعض شركة جرائد يعني هلكم كو قبنا أيوه ما أنت وتيل جولد وحاو كوساب سنة هاي ما أنت وأيبشوا تاي صدق يطلبك بشي الحاد وحكولا السبوية رأي حزبية قرنكه madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kulankaas oo ugu xog waramay xaaladaha guud ee dalka marka hore marka labaadna uu si gaar ah uga waramay wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ee soo bilaabmay 2011 oo tadawur cusub qaatay iyo waxyaabaha ku soo kordhay waxa uu madaxweynuhu ka waramay in bari oo axada wafdi isagu hogaaminayo oo la xubnooda ay u bixi doonaan dalka Djibouti aynu walaalaha nahay kana qayb gali doonaan shir ay isugu iman doonaan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdeeda iyo wafdi ka socda iyo xubno ka socda dawladda federaalka Soomaaliya shirkaas oo uu qabtay dawladda Mareykanka ay qabatay ayna gobasho dhigtay dawladda Djibouti waxa uu noo sheegay madaxweynuhu in hadeerto ama waqtigan aynu joogno ajende gaar ah oo faahfaahsan oo uu bixinayo ama uu hayaa aanay jirin kaliya loogu yeedhay inay ka qayb galaan shirkaas wixii tala ahayd ee markaa uu bidayay xisbiyada qaranka waa weydiiyey waxaana uu sheegay in uu jecel yahay shirkaas wixii ka soo baxa inuu axsaabta qaranka iyo ummadda Soomaaliland labadaba ku soo celiyo marka inta laga tago sida aad ogtihiin horena aan idinku sheegay shirkada wada hadaladan waxay bilaabmeen 2011 xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa ogolaaday golayaasha qaranka oo golayaasha xeerdejinta ah waxa ogolaaday oo iyagana arinta iyaga lagu casuumay markii ay bilaabmayeen golayaasha dhaqanka waxa ogolaaday oo ka qayb galay xisbiyada qaranka waxay joogsadeen 2015 bishii saddexaad labadeedii kulankii ugu dambeeyay ee Istanbul lagu qabtay ayay joogsadeen waxana ay ahayd arrin la isku waafaqsan yahay oo Soomaaliland hay'adaha kala duwan ay isku waafaqsanaayeen inaynu garteena geeyno golayaasha caalamiga ah si aynu dalkan ugu raadino aqoonsi caalami ah marka haddaba xisbiga aragtidiisa iyo fikirka oo arrinta ka qaba waxa ay tahay guud ahaan inuu ogol yahay oo aqbalay sidoo horeba u aqbalay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay socdaan waxaana iyadana sidaas leeg taageersanahay in mandate-ka iyo awoodaha sharci ee xukuumadda ay u siiyeen sharciga dalku u siiyay inay hogaamiso wada hadalladu haddii ay u baahato ama ha noqoto axsaab qaran ama ha noqoto golayaal qaranna cidii ay u baahatana ayadu xaq u leedahay cidii ay talada dalka uga maarmi weydo ama ka qaybgalka shirarka ay uga maarmi weydo inay iyadu u yeedho oo anagu aanan ku haysan xisbi ahaan talada iyo hogaamintii ay xaq u lahayd waxaanu xisbi ahaan ku baaqaynaa xukuumaddu iyada oo ku dhaqmaysa ilaalinaysana xuduudaha sharci ee dastuurku siiyay inay ka qayb gasho shirkaas wax kasta oo ka soo baxaya shirkaasina ay u raacdo habraaca dastuurka iyo shuruucda dalku iyo awoodaha ay siinayaan xukuumadda wixii ka baxsan arrinta iyada ah xisbi ahaan xukuumadda kuma taageersanin kulamana soconno waxaanu la sugaynaa ka hor dhicmayna waqtiga ay soo baxaan ayaanu sugaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo arrinta iyada ah waxaynu ognahay shirarkii ugu dambeeyay waxyaabo tallaabooyin badan baa la qaaday laakiin waa la ismar waayay waxyaabihii la isku mari waayayna waxaa ka mid ahayd Soomaaliland waxay golayaasha la tegaysay inay tahay qaran madax bannaan oo gobonimadiisa ka qaatay dowladda Ingiriiska 26 Juun 1960 lana midoobay 1 July 1960 dowladda Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysanayay sidaa darteed in Soomaaliland ay la noqotay maxaan dhaastay 20 May
1991 ay dib ula soo noqotay xornimadeedii marka Soomaaliland mar walba waxay ku doodaysay doodeedu ahayd inaynu noqono laba qaran oo walaalo ah oo kala madax bannaan oo jaar ah oo isxushmeeya waxayna aragtidaasi soo qaadatay muddo 29 sanadooda inkastoo dalku uusan wali aqoonsi caalami helin dalku ay ka jireen nabadgelyo ay ka jireen hay'ado dastuuriga ay dhismeen horumar dhaqaale uu ka jiro horumar bulsho uu ka jiro madaxweynaha hadda ixtiraamada hayana waxa laga sugayaa wixii dhiban ee qabyo ah inuu dhameystiro oo ay ka mid tahay inuu dalkan u helo aqoonsi caalami ah waana ku taageersanay ka qaybgalka wada hadalladaas isagoo ilaalinaya xuduudaha sharci iyo awoodda uu dastuurku siiyay waad mahadsantihiin عبد السقادن هل سؤال كويديو wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya mudooyinka istaag bay ku jireen oo sanada dawladda Soomaaliya hogaamiyo farmaajo waqtigeedu waa dhow yahay taamaan looran karin wada hadal naftood waqtigii loogu baahnaa maaha waqtigan way soo habsaamay maadaama dawladdiina ay sii dhacayso aad baad mahadsan tahay horta marka hore sida aan hadalka ku sheegay xukuumaddu iyada xaq u leh goorta iyo waqtiga ay dooranayso wada hadallada inay ka qayb gasho oo anagu xisbi ahaan u yeedhinayno xukuumaddu waqtiga ay wada hadallada galayso iyo ka habaanaanshadeeda waxaanu siin karaa waxay noqon karaan un talo marka labaadna waxa laga yaabaa in aragtida ay aragti ka duwan dad qaba ay jiraan oo haddii dawlad sii dhacayso oo liidata wax laga goosan waayo dee midilkeedii qabto cusub oo maanta dhalatay wax laga goostaa waxaan isleeyahay malaatana kaga habboon in la yiraahdo midda labaadna sida aan hadalkayga ku bilaabay gogasha ama shirka waxa ku baaqay oo dhigay dawladda Mareykanka xilliga marka waxaynu ka jawaabnay inagu soo jeedintii ay xukuumaddu ka jawaabtay loo soo jeediyay ahayd inay shir ay beesha caalamku joogto oo dawladda Mareykanku hogaaminayso midowga Yurub ka soo qayb galayaan dawladda Ingiriiska ka soo qayb galayaan wadamada Jaarka ka soo qayb galayaan inay ka soo qayb gasho waxaan aaminsanahay inaanay ku khaldanayn ka qaybgalka shirka laakiin waxa kaliya aynu inagu ilaalinaynaa mar walba aynu ka hadlaynaa waxa weeye waxa ay kala soo noqonaysaa waa inay noqdaan wuxuu cuntama bulshada reer Soomaaliland ilaalisaana xeerarka iyo shuruucda dalka u yaal وأنا عبسان لدوك حسبي معركة هاي وطني باتيهين يقولون حكومتي مدوين كده بحثوا نقنقونية حكومة جوان كاستوي قاضي سو إنتاني قادين إن يدلش رئيسو يدين يريسو تاسو كرديجان سيدة تصار هان ستيدي تمن كمي اللي باتي حالات دي كوفيد 19 واللي يديها كحلنا وحكم ده كلن كرمان تلاقى تاني وده حضرة الصومالي دور كيني معارض نمضم يعني ماشي كبحين معروف بمركل يدين سو يدين نتيجة ده حكومة ضايق جوامينيسو waxaan filayaa inay laba aynu kala saarno marka ugu horeysa doorkii mucaaradnimo aanu lahayn iyo tusaale ahaan iyo wixii danta caamka ah ee qaranka xukuumadda xil baa saaran xilkaas saaran waxa weeye wax kasta oo danta qaranka ah inay cid kasta ay khusayso ama institutions dalka inay ka qayb geliso oo waajib saaran weeye haddii ay noogu yeedho marka waxyaabaha noocaas oo kale ah ee aad ka hadlayso oo مثلا ay kamid tahay duruufihii ee 18 May iyadoo caalamka oo dhan uu ka dilaacay cudur halis ah oo noloshii dadka khatar gelinaya inay nagala tashato oo tiraado waxa jira dhaqankeena caynkaas oo ahaa tala maxaad haysan oo dadka tala weydiisa waxaan isleeyahay xukuumadda dan bay u tahay oo waxa ugu jira oo sharcinimadeedii iyo inay kalsooni siiso ay noqonaysaa xisbiguna inuu ka qayb gala waxay noqonaysaa xaslaanigu waa waxa weeye waa wanaaga xumaan maaha waxa maanta xumaan ah maanta haddii xukuumaddu ay soo goyso waxaan dadkan iyo dalkan u qalbin inaan ku raacno taanu ilaalinayna sharcigu nasiina waa taas weynu u sugayna ka wada sugayna gudoomiye waxaad noo sheegtay intii shirkaaga jiray Sacuudi madaxweynaha maanta markaad la kulanteen uu idin sheegay in Djibouti martaqaadka ku tagay aan ogeyn ajenda looga hadlayo idinkuna asaas la qaadatay بريتو مركو halka tagay shirka wada yeeshaan wixii ka soo baxa maaqbalsan maadaama maanta loo qaatay waxaan u maleynayaa inuu ku dhaafay hadalkayga wax kasta oo xuduudda sharci ee dalkan iyo dastuurku u ogolaanaya madaxweynaha danta qaranku ku jirto waa ogolaanayna wax alla wixii ka soo horjeedina lamana qabno waana ka soo horjeedna gudoomiye aad baad u mahadsan tahay su'aashan doonayna ku weydiiyo waxay tahay marar badan baa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya wadamo badan ka qarsoomeen dhammaantoodba kala kacbay ku soo dhamaadeen ama natiijo wax ka oole kama soo bixin qodobada la isla qaato wada hadalladaasna dhammaantood waxa dawladda federaalka Soomaaliya ka baxda Soomaaliland sanadkan ma isleedahay natiijo uga soo baxaysa wada hadalka ka furmaya Djibouti
horta waxaan anigu isleeyahay wadahadaladii la galay dhammaantood cidda ka faa'iidaysay waxay ahayd somalilan tusaale markaan kuu soo qaado shirkii ugu horreeyey 2011 ma jirin gole caalamiya oo ka horreeya oo somalilan intay soo fadhiisatay cid dhexdhexaada oo isu dhegaysanaysa iyagoo laba entity ah oo ishor fadhiya ay isku hor yimaadeen kama ayaan horey marnay 2011 markaan isla horta mar walba waxbaynu ka faa'iideynay waxaan leeyahay ma saadaalin karo Soomaali waxay tidhaa geel direeray ninka deysimooliya Allah inagu maanta ma hayno ajandihii shirkana ma hayno shirkiina wali waxba kama soo bixin laakiin garteeni aynu la tagi jiray baynu la tagaynaa sida aan anagu filayo oo aan madaxweynuhuna uu noo sheegay waxaanu rajaynaynaa in wax waxtar oo ummadan ay ka soo baxaan gudoomiye waa hagaag gudoomiye su'aasha ugu dambeysay gudoomiye gudoomiye waa hagaag intaad hadalka wadi waxaad sheegtay dawlad dhacaysa laga faa'iideystaa aragti ka duwan bay dadka qaar qabaan oo waxay leeyihiin muddo 4 bilood ah oo hadhay dawladda federaalka Soomaaliya dawladdaas oo kale dad siyaasadooda horeysa waxay leeyihiin inay dawladdaasi dib u soo noqoto ama xukuumadda Soomaaliya ka talisaa ama loo kordhiyo ama nidaam kale dib loo doorto ka cusbi ahaan idinku taasimi aaminsantiin in dawladdaasi dan gaar ay ka leedahay muddo 3 sano oo madaxweynaha Soomaaliland jooga haddii ay hawl gaar ay ka leeyihiin in markii hore muddadaas oo dhan la wada hadlamayna ka mudnayn intay dawlad sii dhacaysa hadda la hadlay ana saraaciye ku daswaashaada adiguna hagaag gudoomiye halka su'aalan ku weydiinaya waxa weeye marka laga yimaado wadamada ka qayb galaya shirka iyo shirka dhexdhexaadinaya oo labada dal hadalka u qaybinaya su'aasha haddii aan ka jawaabo cid dal aan socotaa ma jirto waa la hubaa dawladda Mareykanka ah horta su'aashaada dambe markaan ku horeeyo isugu yeedhay oo wada hadal ka qabatay iyadana dhexdhexaadinaysa danta ay soo kaleeyahay dawladda Mareykanka ka leedahay dalaan cidina ma socoto dan bay ka leedahay dawladda Soomaaliya federaalka Soomaaliya dan bay ka leedahay Soomaaliland wada hadal dan bay ka leedahay cidda xilku saaran yahay inaga inay xaqiijiyaan himilooyinkii iyo danaha aynu kala hayn shirku waa cidda hogaaminaysa xukuumadda iyo madaxweynaha laakiin kuma xidhna momentum gaaraho ama 4 bilood ha harsanaato ama sanad ha harsanaato sida aynu uga faa'iideysano oo bay ku xiran tahay waa sax cid dan la'aan socotaa ma jirto dawladda federaalkuna iyo madaxweynaheeduna hadday u arkaan dan inay wada hadal xilligan qabtaan laakiin anigu waxaan isleeyahay aragtidayda maadaama iyagu soo jeedinta aanay lahayn ee dawladda Mareykan ay lahayd cidda xukuumaddeenu ixtiraamtana dawladda Mareykanka ahayd iyo dawladda Djibouti oo gogasha dhigtay oo Mareykanku uu ka dalbaday waxaan isleeyahay halkaa wax inaga lumayo oo maanta anigu aan ogahay ma jirto waxaan loo joogin hadday xukuumaddu la timaadana waynu u wada joognaa idinkoo saxaafadii axsaabtii mucaaradka ahayd iyo bulshooyintii Soomaaliland waa u joogan aad mahadsantahay